Qaruhu waxa uu ka mid yahay miraha inoo soo go'a xilliga xagaaga ah, waxaa lagu yaqaannaa dhadhan wanaagsan iyo midab qurxoon, sidaa darteed dadka oo dhammi way jecel yihiin. Waxaa ku jira fitamiinno badan oo u muhiim ah caafimaadka jidhka oo aan looga maarmin. Sida uu qoray website-ka Healthy, qaruhu ama xabxabka faa'iidooyin badan ayaa laga helaa, waxaana ka mid ah faa'iidooyinka qaraha ee jidhka guud ahaan, haragga sare iyo timaha. Qaraha waxaa laga helaa maadada collagen oo ka qayb qaadata xoojinta caafimaadka jidhka, way ifisaa, waxayna ka ilaalisaa calaamadaha duqnimada. Waxaa ku jira biyo badan waxaana hooseeyey calooriiska uu leeyahay, sidaa darteed waxaa laga helaa firfircooni, baruurtana waa lagu jaraa. Jidhka waxa uu ka ilaaliyaa cudurrada kansarka ee kala duwan, sida kansarka sanbabka, kan naasaha iyo kan borostatka ah. Jidhka waxa uu ka ilaaliyaa xanuunnada wadnaha, istaroogga, sidaa darteed faytamiinka faraha badan ee ku jira iyo nacfiga cunno ee uu leeyahay waxay muhiim u tahay wadnaha iyo jidhka. Caafimaadka indhaha iyo sanbabaha ayuu u roon yahay. Nacfiga iyo faytamiinada lagama maarmaanka ah ee caafimaadka indhaha u roon ayaa laga helaa. Waxa uu kaalin weyn ka ciyaaraa xoojinta ragganimada iyo awoodda bacriminta qofka. Biyaha iyo sonkorta ku jirtay qaraha, heerka sonkorta jidhka ayay xakameeyaan, sidaa darteed bukaanka macaanka sonkorowga qaba waxaa lagula taliyaa inay mar kasta oo ay u suura gasho ay isticmaalaan. Habdhiska dheefshiidka ayuu xoojiyaa, dhibaatooyinka caloosha ee calool-majiirku uu ka mid yahay qofka uu ka ilaaliyaa. Caafimaadka beerka iyo kelyaha ayuu u roon yahay, waxa uu ka ilaaliyaa inay hawlgab noqdaan ama cudurrada kansarku ay ku dhacaan. Qaraha waxaa ku jira dheef muhiim ah oo dhiig karta lagu dejiyo. Waxa uu xoojiyaa caafimaadka iyo koritaanka timaha, caabuqana wuu ka ilaaliyaa. Caafimaadka lafaha ayaa lagu xoojiyaa, waxa uuna ka ilaaliyaa lafo jileeca iyo caabuqyada kala duwan.